بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan jeclahay maanta inaan ka hadlo laba arrimood oo runtii aan isleeyahay aad iyo aad ayaa loogu baahan yahay mid waa mid aniga igu saabsan oo asxaab fara badan ayaa su'aal isoo weydiiyeen oo jeclaan inaan uga jawaabo ta labaadna waxaan jeclahay inaan ka hadlo diinta islaamka ma diin shakhsiya ah mase waa diin ummadeed iyo shakhsiba oo caalamiinta oo idin loogu talagalay sideen ku ogaa karnaa inaan saxan nahay inaan qaldan nahay waxyaabahaas ayaan qaada dhigi doonaa haddii ilaahay yiraahdo laakiin aan ku horeeyo kow anigu dad fara badan oo asxaabtayda ayaa waxay ii soo qoreen su'aalo cajiiba isoo weydiiyeen waxay igu yidhaahdeen niyahow muctasili ayaad u eg tahay qaar shiicaad u egtay yidhaahdeen qaar waxay yidhaahdeen khawaarij ayaa kaa muuqata waxaa fara badan oo qariiba ayaa laysoo weydiiyey marka waxaan jeclaa inaan ka jawaabo arrimahaas haddii ilaahay yiraahdo kow waxaan jeclaa inaan idhaahdo anigu ma jirto koox ka mid a kooxaha islaamka oo aan taageersanahay boqolkiiba boqol hal koox oon wax walba ku raacsanahay ma jirto caalamka korkiisa sidoo kaleeto ma jirto koox aan wax walba ku diidanahay boqolkiiba boqol waddankanaga soomaaliya haddaan kasoo qaato anigu waxaan kusoo koray guri shaaficiyaan kusoo koray aabbahay ilaahay u naxariistay wuxuu ahaa sheekh shaaficiya madhabka shaaficiga ayuu haystay aabbahay asli faracba ilaahay u naxariistee isagaana wax soo baray inta ugu badan kabacdina waxaan kusoo biiray baraarugga islaamka inkastoo waagii dambe ay u bateen nimankan wahaabiye la yidhaahdo marka mar dambaa waxaan isweydiiyey khaladaad fara badan oo jira ayaan arkay sidaas ayaan uga insixaabay labadii kooxoodba waddankanaga waxaa ka jira laba madhabo waaweyn oo madhabka la yidhaahdo suufi iyo madhabka la yidhaahdo wahaabi ama axmed bin xambal jamaacadiisii dheh ama wahaabi dheh wax noocaasa labada kooxoodba waa asxaabteydii weeyaan waana ka insixaaba runtii labadaba waa ka leexday koox kaloo aan garana ma jirto runtii waxaa noqday qof macnaha keligiis asagu kali socda inkastoon ogahay inaysan fiicnayn laakiin haddana duruufta ayaa ibaday waxaan arkay khaladaad fara badan oo labada qolaba ku jira qolyaha kaleetana xataa aysan ka nabad qabinaan arkay waxa weeyaan aan ku horeeyo suufiye maxaan uga tegey suufiye waxaan uga tegey caqiidada ayaa fasaad badan uga jira masalan suufiyadu waxay rumaysan yihiin dhinac fara badan in fara badan oo caqiidada la xiriirta caqiido marka laga hadla diinta islaamka waxay u kala baxdaa caqiido ama asal iyo farac ay u kala baxdaa caqiido iyo axkaam iyo furuuc ayaa la yidhaahdaa marka dhinaca caqiidada waa ilaahay rumayntiisa maxay ahayd waxyaabaha iimaanka la yidhaahdo weeyaan maalinta aakhiro waxyaabaha noocaasa caqiida la yidhaahdaa marka caqiidadeedu waxa weeyaan caqiidada nimanka la yidhaahdo suufiyadu waxaan ku diideen uga tegey shirkiyada ku jira sidoo kaleeto wax fara badan ay la wadaagaan shiicada dhinaca maxay ahayd ahlulbeytka iyo waxyaabaha noocaasa qaabkay ula tacaamulayaan wax fara badan waxay shabahaan waxaa ku jirta tacdiimin saa'ida ayaa ku jirta oo macnaha aan loo baahnayn heerkaas in la gaarsiiyo bani aadamka waa kow qaybta labaad waxa weeyaan tawasulka ay awliyada ku tawasulaan oo kaleeto qof dhintay la hadlayaan qof macnaha awood sheeganayo sitii ilaahay oo kaleeto sheeganayo halkaana ka duulayo halkaasan tegayaa wax noocaasoo macnaha junuun ah waaliya macnaha waxyaabaas markaan arkay waan ka tegey waa iska dhaafay inay khaarij can ilmilla tahay ma ka jawaabi karo faa'iido ma leeyihiin suufiya haa faa'iidooyin fara badanay leeyihiin faa'iidooyinka ugu badanay leeyihiin waxaa ka mid ah meesha ugu muhiimsan ee waddamadii gumaystayaashu ay diinta islaamka ka baabi'i waayeen waxaa kow ka ah nimanka la yidhaha suufiya dad badan ma oga laakiin way og yihiin waddamada gumaystayaasha ahay ninka suufiga ah dadka wuu la qayilayaa wuu la ciyaarayaa wuu ku dhex jiraa turubkii wuu la ciyaarayaa waxay sameeyaan oo la samaynayaa wacdii ugu tuuraa haddana salaaddii u tujinayaa way ku wareereen marka meelay kasoo maraan ay qow waayeen marka nimankaa suufiyada la yidhaahdo diinta islaamka wax weyn ayuu qabteen ilaa haddana u hayaan marka positive weeyaan dhinaca axkaamta ma xuma ummadda islaamkay la mid yihiin far soo taagan maahan kasoo gudub macnaha suufiye waxaan ku nacay dhinaca caqiidadaan ku nacay taasaan sheegayaa
wahaabi imaad wahaabi waxaan isleeyahay caqiidana uma fayooba axkaamana uma fayoobaan isleeyahay caqiidada maxaan ku arkay caqiidada wahaabiyada waxaa aad uga buuxda kiristaanka aad uga buuxda diinta kiristaanka aad uga buuxda caqiidada kiristaanka ayaa aad uga buuxda wahaabiyada waxaa laga yaabaa inaad dhibsato wadalkaas oo aad qaylisaan laga yaaba laakiin hayla dagaalin aniga xanaaqin bal u fiirsa waxaan ka hadlayo iskuna day inaad fahantid waxaan ka hadlayo haddaad wahaabi tahay oo madhabka wahaabiyada aad rumaysan tahay waxaad fiirisaa caqiidada wahaabiyada waxay ku salaysan tahay 3 arrimood fiiri arrinta koowaad waxa weeyaan caqiidada wahaabiyada macnaha arrinta koowaad waxa weeyaan qaybta kiristaanka ay uga dhow yihiin oo la siman yihiin waxa weeyaan kiristaanku waxay rumaysan yihiin wax la yidhaahdo ciisa kalaamullah walaysa bimakhluuq nabiyullahi ciise waa kalaamka ilaahay makhluuqna maaha iyo ruuxdiisii haddaad weydiiso tira ilaahyo badan ma jira mayay kuleeyihin ilaahyo badan ma jiro qof kiristaan oo ku dhahaya 2 ilaaha jirta ama 3 ilaaha jirta anuu ma aqaano weligay ma arag hal ilaaha jiro kuleeyihin idan ciise muxuu yahay markaad tirahdin wuxuu kuleeyahay ciise waa kalaamka ilaahay iyo ruuxda ilaahay makhluuqna maahan muxuu yahay waa qayb ilaahay ka mid ah ruuxdu maxay tahay waa qayb ilaahay ka mid ah nin la yidhaha yuxanna ayaa wax u keena wax la yidhaahdo hadalka ruuxdiisu allah waa ruuxdiisa makhluuq maahan hadalkiisu waa asaga makhluuq maahan oo wax iska daba wareejino sidaas shaydaannimo ah waxay qaateen qur-aankuna si cad u diiday taas si waadax ayuu diiday okay wahaabiya xaggay uga gishiin waxay yidhaahdeen alqur'aanu kalaamullahi walaysa bimakhluuq u fiirsadayaa qur'aanku waa kalaamka ilaahay makhluuqna maahan qur'aankuna muxuu leeyahay bilisaanin carabiyin ina anzalnaahu qur'aanan carabiyan fiiriya ina anzalnaahu qur'aanan carabiyan dalika natluhu calayka min alaayaati wadikri alxakiim aayaad weeyaan qur'aanku waa luqadda carabiga lisaanka carabiga weeyaan waa kalaamka ilaahay waa run laakiin shay waliba waa kalaamka ilaahay wax walba kalaamka ilaahay weeyaan idan ciise waa kalaamka ilaahay ruuxda ilaahay muxuu makhluuq ku noqday qur'aankuna oo makhluuq ku noqon waaye bal ii sheeg waa kalaamka ilaahay qur'aanku laakiin waxaad tiri makhluuq maahan waxaad la wadaagtaa kiristaanka ayaad meeshaas wax kala wadaagtaa waa kow soo soco sifada ilaahay qaabkay u sifaynayaan allah subxaana wa tacaala tashbiihay sameeyaan wahaabiyadu allah qofkii dadka caamada wax laga yaaba inaysan ogeyn laakiin culammadu way ogyihiin ilahay waxay u ekeysiyaan qof ay u ekeysiyaan laakiin qof haddana maahan qof waaye qof haddana maahan indhow leeyahay indhana ma lahan indhihiisa lama yaqaano siday u yaallaan gacmihiisu siday u yaallaan ma naqaano waxaa noocaas fara badan waxaas ilaahay laysa ka mid leh shay inuu ilaahay yidhi wax lagu wasami karaa ma jiraan wax alla wax lagu wasami karaa ilaahay ma jiraan ka soo soco marka aqsaamu tawxiid maxay yihiin tawxiid aluluhiya tawxiid arububiya tawxiid alasmaa wasifaat subxaana allahi alcadiim waxyaabaas markaan arkay wahaabiye waa ka leexdaan dhinaca maxay ahato madhabka oo axkaamta anigu waxaan isleeyahay ummadda islaamka horta kala siman yihiin in general ummadda islaamku axkaamta waxay ka soo qaadatay waxaan dhihi karaa tirada ugu badan axkaamta islaamka kitaabkii tawreeda laga soo qaatay axkaamta qur-aanka ku jirtaa ka qafiifsan kuwa tawreed kii qafiifkaha inta laga tegey ayaa kii tawreed la soo qaato adadayga ahay marka khaladkaasuna ummadda islaamka guud ahaan meelay joogtaba waa haystaa dhowrkaas arrimood markaan arkay anigu waxaan idhi meeshan caadi maahan okay faa'iido ma leeyihiin oo nimanka la dhaha wahaabiya haa faa'iido fara badan ay leeyihiin faa'iidooyinka ay leeyihin waxaa ka mid ah ammaanada iyo maxay ahaato ballanta nin wahaabiyuhu wax fara badan wuxuu kaga fiican yahay ummadaha kaleeto dhinaca ammaanada dhinaca ballantana waa kaga fiican yahay laba shay oo dahabiyana waay runtii oon laiska heli karin waay ummadaha kaleeto wax badan way kaga fiican yihiin aan qaba anugu waa laba shay oo taqwada ka mida weeyaan runtii muhiib ah waladiina hum licahdihim wa amaanaatihim raacun oo ilahay leeyahy subxaanahu jala wacala mu'miniinta markuu tilmaamayo idan dhinaca caqiidada dhibaataan ku arkay dhinaca axkaamta ummadda islaamka oo dhan baan dhibaata iga muuqataa qur-aanka inta la nacaya kitaabo kale la soo qaatay marka waxyaabahaas markaan arkay waxa ii soo baxday inaan kaliga ilaahay caabudo subxaanahu wa tacaala madhabkaygana soo sheegi doona haddii ilaahay yiraa aniga hayla dagaalin laakiin waxyaabaha aan kuu soo sheegay bal isku day inaad baartid ood xaqiijisid wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah la soco
qaybta dambe haddii ilaahay yidhaahdo